Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. Nasteexo Xasan Cali yaraanteedii waxa ay jeclayd inay askari noqoto oo mar un ay ka mid noqoto difaacayaasha dalka. dadaal dheer ayay u gashay inay ka dhamayso ku talagalkeedii laakiin sanadkii 2016 waxaa ku dhacay arin afjartay riyadeedii ay ku taamaysay waxayna si xun ugu dhaawacantay qarax ka dhacay Galgala 2016 bishii 12aad baan Galgala qarax baa igu dhacay lugtaay gacanta midigta baa go'ay lugta kale dhibaatada way iga gaartay saas waxay soo gaareen istaal carma la keenay lugta la iga jaray dhibaatadaas iyo saameynta inta leeg bay soo gaartay cid marakan garab isisay cid aan caawin ka helayna wali lama kulmin waxaan laga yaabaa in ay isweydiin mudan tahay maxaa adiga ku geeyay meesha Galgala ma ciidan ba ahayd sababtu maxay ahayd meesha u tagtay wallahi aniga marka hore ciidan ma ahayn sabab iyo qadar ba marka hore geysay kadibna qof waxaan ahaa dhalinyaro oo macnaha ciidankaas aan la noolaa waan caawin jiray ciidankaas iyo dadkaas aan ku dhex jiray ninkayga askari ahaa marka hore meesha joogay kadib hadii aan damcaynaan meesha iyo gobolka aan ka tagay aan ku soo noqdana shilka noocaas la kulmay maxaad marka intaad meesha joogtay aad u qabanaysa ciidanka wallahi waa caawin jiray dad aan la nooshahay wax u karisaya wax u dhaqdaya rag waa garanaysaa meeshiina adiga aad dumar u tahay waa caawin jiray maxaa dhacay kadib shilkaas ay igu dhacay gaari baan soo raacay gaarigii ciidankii saarnaa miinadaas la kacday aniga lugagtaay gacantaas ay iga soo gaareen alxamdulillaah rabbil caalamiin ragii qayb baa ku dhimatay qayb waa ku dhaawacantay dhibaatada noocaas meesha ka dhacday markii lagu sheegay oo aad soo miirsatay lagu sheegay in lugtaadii gacantaadii la gooyay maxaa dareentay wallahi aad baa u naxa oo aad baa uga qiirooday laakiin haddana saasay tahay dad islaana inuu nahay Soomaha waxaana qadar Ilaahay bay ku dhacday awood Ilaahay wax ka weyn ma lahan alxamdulillaah rabbil caalamiin baan iska yiri waan ku khasbantahay qadarta Ilaahay inaan ku qanacdin iimaankaaga aad ku qabtin marka laga soo tago inay qadar ku qoran ay ahayd maxay saameyn ah oo ay kugu yeelatay lugtan iyo gacantan midigta ah oo ka go'an saameyn bay igu yeelatay aad u weyn oo qof mar dhalinyaro oo lixaad iyo orod iyo bartay oo haddana lixaadkiisii dhantaalmay garanaysaa saameyn weyn bay ku dhalinaysaa qofka cuqdad bay kugu dhalinaysaa waxa is oranaysaa dadka lama mid tihidee ka dambe oo waayo shalay dadka hada la mid ahayd maanta waa ka hadhay dadka Soomaa waayo inaan socdo waan isku dayayaa inaan wax soo qabsado waan isku dayayaa waa dhacaya marar badan baa soo gaara waxa laga yaabaa inaan darbi ku dhaco kale oo madaxa nabar iga soo gaaro mar waa sigtaa inaan jabo oo kale oo cabsi baa gasha magaaladan aadaya wuxuun shil ama xabado wuxuun baa dhacaya aad bay saameynaysaa waan ka cabsanaya waan naxayaa waxa laga yaabaa marka inaan xanuunsado madaxu zaa'id ii xanuuno cabsi darteed inaan dadku wayaacayaan wuxuun baa dhacaya kaliya meesha ku soo haraya oo ku saameynta ugu weyn mararka qaabkood la kulmo weeye tas gurigaagii ma jiraa wali macnaha xaasmata
may ma ihi hadeer keligay baa aha dee qof bili aadan oo dee shalay lixaad kugu bartay dee haddii ammaanta fadhiisatay dee inta kuu adeega waqti iska yar bay noqonaysaa saasuu ku tega. maxaa hadda ku haminaysaa? dee kolay marna lixaadkayga iisoo noqon maya laakiin waxaan jeclahay inaan isku dayo oo lay caawiyo inaan socdo oo dee artificial iyo waxaas iyo caafimaad iyo nolol aan helo baan jeclaa. kolay gabar yaroo dhalinyaraha baa tahay, mustaqbalna waad leedahay, ma jeclaan lahayd inaad isku daydo marna inaad shaqayso? iskuma dayin laakiin waan jeclahay inaan shaqaysto waayo haddii aan lug helo oo aan socdo istaago dee yaana shaqo badan qaban laakiin dee markaas macquul way noqonaysaa inaan wax qabto laakiin waan jeclahaa. marka intaas laga soo gudbo dad baa ku daawanaya iyo laga yaabay naftigooda inaad dowladda Puntland hadda aad garow joogtid in ay madaxdoodu ay fariintan ay gaarto, maxaad codsan lahayd oo aad tilmaami lahayd in lagu qabtaa? madaxda iyo dadka i daawanaya waxaan ka codsanayaa ma aan jeclaan lahaa in la ii qabto, in garab la isiiyo sidii aan ku socon lahaa oo ku istaagi lahaa waayo dadka haddii aad heshid wuxuun aad ku istaagtid ama dadku garab taagan oo ku caawiya isbiira dareen waxaa kugu dhalanaya inaa wax qabsan kartid. taasaan jeclaan lahaa. haween badan baa jira oo dalkii dibadda jooga, ururo badan oo haweenku ay leeyihiin baa jira, wasaaradda haween baa jirta, way badan yihiin. dumarka oo aad adigu ka tirsan tahay si gaara haddaad damacdid inaad ula hadashid maxaa oran lahayd? dumarka waxaan ka codsan lahaa in ay iscaawiyaan iyagu ama ay wax ii qabtaan wixii ay awoodaan haddii ilaahay la garab galo. aad baa u mahadsan tahay Nasteexo. daawadayaal, Nasteexo sidaad uga jeedaanba waa gabar yar oo aad u yar, waxaana ilaahay amarkiisa ay dhacday in lug iyo gacan isxigta oo midigta ah weliba ay ka go-an tahay, iyadoo gaariga ciidan saaran oo ciidanka in muddaa usoo shaqaynaysay ayay qaraxasi la kulantay 2016. saameyntan adag ayayna ku yeelatay. Nasteexo waa gabar yar oo dhalinyaro ah, mustaqbal ayay u baahan tahay. waxyaabaha marka muhiimka ah ee loo baahan yahay ayaa waxay tahay dowladda iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, siiba haweenka ayaan la hadlayaa in Nasteexo loo sameyn karo gacan iyo lug artificial ah oo runtii aan lacag badan ku fadhiin, kaliya in la geeyo India ayay ku eg tahay oo loo soo sameeyo intaas. waan filayaa in walaasheen Nasteexa oo mustaqbalka iyo horumarka ay rabtay inay shaqaysato ay doonayso in ay runtii laga soo saacido. dhacdadan markii ku dhacda Nasteexa waxa ay saameysay qoyskeeda oo markaa dhisnaa oo halka qoyskeeda ayaa ku burburay. waxa ay kaloo ay saameysay nolosheedii dambe iyo mustaqbalkeedii iyo waxyaabo badan ayay runtii tabanaysaa. waana dhalinyaro, waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala in aad u soo jawaabtaan walaasheen Nasteexa oo si degdeg ah loogu soo gurmado, iyadoo cidda markaa u baahan inay la gurmato Nasteexa ay kala xiriiri karto lamarka shaashada ku qoran. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.